hawada sare ee khaliijka ayaa noqotay goob calawsanaan iyo xiisad isku dhafan leh diyaarad sahamin oo Mareykanku leeyahay kana mid ah kuwa ugu horumarsan tiknoolajiyada military ayaa si lama filaan ah uga baxday shaashadaha raadaradii lagala socday iyadoo oo aysan wax rasaas ah qarax ah ama digniin cad ah jirin isla waqtigaas Iran waxay hawada gelisay diyaarad cusub oo aan duuliye lahayn xawaaraheeduna gaarayo 900 kilomitir saacadiiba kuna duulaysa joog sare oo ka baxsan inta badan difaacyada gaaban ee gobolka su'aalaha ugu waaweyn ee taagan waxa kamid ah ma suurtagal baa in tiknoolajiyadii Iran ay ku guuleysatay inay ka dulboodo nidaamyadii kormeerka ee Mareykanka diyaaradda cusub ma calaamad ayay u tahay in Iran ay horumar ka samaysay tiknoolajiyadii xadidnaa ee hore sheegashada Washington ee ah in Iran hal toddobaad uun ay u jirto hub nuclear ah ma hadal xaqiiqo sirdoon ah baa mise waa cadaadis diblomaasiyadeed sidee dhacdooyinkan ay u bedeli karaan xisaabaadka awoodda iyo istaraatiijiyadda ee gobolka tabinteenan Tifaftir Media ayaa su'aalahaas iyo kuwa kale ka jawaabaysa iyada oo bixinaysa falanqayn qoto dheer oo ku saabsan xaaladda awoodda military ee Iran hubka nuclearka iyo isku dayada Mareykanka si loo fahmo saameynta istaraatiijiyadeed ee dhacdooyinkan soo dhawaada wahagaag haddii ay tahay markaagii ugu horeysay aad daawanayso Tifaftir Media waxaan ka rajaynaynaa inaad ku soo biirto bahda nagu xiran aan toos u galno falanqaynta 23 bishan Febraayo 2026 Mareykanka ayaa waayay xiriirkii mid kamid ah diyaaradaha sahanka ee ugu horumarsan xilli ay dul heehaabaysay biyaha khaliijka diyaaradaas oo ah nooca MQ-4C Triton ayaa si lama filaan uga baxday shaashadaha raadaarka iyadoo ku guda jirtay hawl kormeer joogto ah dhacdadan waxay ku soo beegantay xilli gobolka uu galay marxalad kacsanaan military iyo loolan istaraatiijiyadeed ah isla waqtigaas warar sirdoon ayaa muujiyay in Iran ay hawada gelisay diyaarad cusub oo aan duuliye lahayn taas oo la sheegay inay ku duulayso xawaare gaaraya 900 kilomitir saacadiiba iyo joog dhan 31,000 oo feet talaabadan ayaa bedeshay xisaabihii amni ee gobolka gaar ahaan kuwa Israa'iil halkaas oo warbaahintu ay si weyn uga hadashay waxa ay ugu yeereen khatar suuragal ku ah ammaanka maamulka gumaysiga diyaaradda la waayay ee Mareykanka ee Triton waa lafdhabarta kormeerka badda ee Mareykanka waxay hawada ku jiri kartaa in ka badan 30 saacadood iyadoo oo ku duulaysa joog sare oo ka badan 50,000 oo feet waxa ay ku qalabaysan tahay raadaro iyo dareemayaal awood u leh inay si joogto ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada maraakiibta gaar ahaan meelaha xasaasiga ah sida gacanka Hormuz falanqayn lagu sameeyay dhacdada ayaa soo jeedinaysa 3 suurtagal waa ta koobaad cilad farsamo oo lama filaan ah talabaad in lagu soo riday gantaal lidka diyaaradaha ah iyo ta saddexaad oo ah in lagu qaaday weerar electronic ama cyber ah oo jaray wada xiriirkii la lahaa qodobka saddexaad ayaa noqday kan ugu hadalhaynta badan warar ayaa tilmaamaya in Iran ay howlgelisay nidaam dagaal electronic ah oo awood u leh inuu carqaladeeyo isgaarsiinta dayax gacmeedka iyo hagidda haddii ay dhab noqotona waxay muujinaysaa isbedel weyn oo ku yimid awoodda tiknoolajiyada military ee gobolka dhacdadan waxayna xusuusinaysaa tii 2019 markaas oo Iran ay soo riday diyaarad Mareykan oo nooca RQ-4 Global Hawk ah taas oo xilligaas keentay xiisad halis ku dhawaatay dagaal toosa haddaba haddii aan ku noqono diyaaradda cusub ee Iran ay soo hindistay maxay ka dhigan tahay warbixinada sheegaya diyaaradan Iran ee ku duuli karta 900 kilomitir saacadii ayaa si gaar ah waxay walaac u galiyeen Israa'iil xawaare noocaas ah wuxuu si weyn u yareynayaa waqtiga digniinta hore ee nidaamyada difaaca hawada Israa'iil waxay leedahay nidaamyo difaac oo la kabyo badan leh sida Iron Dome, David Sling iyo Arrow 3 nidaamyadan waxaa loo dhisay inay ka hortagaan gantaalo iyo diyaarado gaabis ah balse diyaarad xawaare sare leh oo leh raad raadaar oo hooseeya waxay abuuri kartaa caqabad cusub horumarkan ayaana muujinaya in Iran ay ka gudubtay caqabado farsamo oo hore u hortaagnaa gaar ahaan dhinaca matoorada xawaaraha sare leh geesta kalena markabka USS Gerald Ford ayaa badda ku jiray in ka badan 250 maalmood waxaana la filayaa inuu dhaafo ilaa 300 oo maalmood tani waa muddo ka baxsan qorshihii caadiga ahaa ee howlgalka waxayna keentay daal nafsaani ah iyo mid farsamo labadaba kordhinta muddadaas waxay sidoo kale dib u dhigaysaa dayactirkii waajibaadka ahaa taas oo saameyn ku yeelan karta diyaar garowga mustaqbalka iyadoo ay ciidamada badda Mareykankuna wajahayaan culays weyn dhinaca kale ergeyga Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff ayaa sheegay in Iran ay aad ugu dhowdahay soo saarista hub nuclear ah hadalkan ayaa dood dhaliyay maadaama warbixino sirdoon oo hore ay tibaaxayeen in kaabayaasha nuclearka Iran uu soo gaaray burbur xoogan bilihii la soo dhaafay
si kastaba ha ahaatee wadahadallada diblomaasiyadeed ayaa ka socda magaalada Geneva halkaas oo la isku dayayo in xal looga gaaro xasarada Washington iyo Tehran laakiin hadallada ka soo baxaya Washington ee sheegaya hal toddobaad oo kaliya ayaa qaar ka mid ah falanqeeyayaashu waxay ku tilmaameen kuwa lagu adkeynayo mowqifka gorgortanka halkii ay ka ahaan lahaayeen qiimeyn sirdoon oo dhameystiran marka la isku daro luminta diyaarad sahmin ah oo Mareykanku leeyahay soo bixitaanka diyaarad cusub oo xawaare sare leh oo Iran leedahay iyo daalka ku yimid ciidanka badda ee Mareykanka ma aha arrimo gooni u taagan waa calaamada muujinaya in nidaamka istiraatiijiga ah ee gobolka uu ku jiro cadaadis xoogan hal qalad oo ka dhaca hawada sare ee gacanka khaliijka ama biyaha marinka Hormuz ayaa dhalin kara isku dhac ballaaran oo aysan cidna si buuxda u xakameyn doonin gobolku wuxuu marayaa marxalad xasaasi ah halkaas oo go'aan kasta oo degdeg ah uu yeelan karo cawaaqib fog wararka ugu dambeeya ee xiisadan ka soo kordha sida aan horeba idinkugu ballan qaadnay Tifaftir Media ayaad kala soconaysaan intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh ha moogaanina inaad ka mid noqotaan bahda ku xiran kanaalkeena Tifaftir Media nabad iyo warsan